qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada Soomaaliyeed ayaa waxa ay gogol nabadeed iyo dib u heshiisiinba ay ka fureen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoona ugu baaqay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay taageeraan gogosha nabadeed. waa kan markale Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag oo warbixintan inoo faahfaahiya. odayaal salaadiin iyo waxgaradkani Soomaaliyeed ee kulankani isugu yimid ayaa waxa ay shaaciyeen in ay furan tahay gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta oo ay horay u sheegeen waxa ayna ku baaqeen in dhammaan dadka ka dhiman gogoshaani ay ka soo qayb galaan waxa ayna dhanka kale ka codsadeen madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya in gogoshaani oo ay sheegeen inay ka furan tahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay si buuxda u taageeraan. haddaba waa kuwan nabadoonnada iyo salaadiintii kulankani ka hadlay kana soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ka kooban. waxa weeye gobolka Shabeellaha Hoose degmada Afgooye gaar ahaan gogoshii aw digil way furan tahay sababtoo ah gogoshaan muddadii aan wadnay furitaankeeda maanta ay noqotay maanta wixii ka dambeeyana gogosha aw digil nabadda ah way furan tahay gogoshaas waa furan tahay in ay nabadda soo dhaweeyaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gudaha iyo dibadda kuna soo qayb galaan gogosha nabadda aw digil gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. ujeedkani waxa waaye calankan inaan nabadda ku soo dawaalno bulshada nabadda ku soo dawaalno deegaanka nabadda aan ku soo dawaalno shir oo looga baaqi dhammaan beelaha degan gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliyeed inay gogoshaas tahay gobol nabadeed in isku imaado weynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka waxaan anagana codsanaynaa in fiir gaar ay lahaadaan gogoshan la fidiyo degmada Afgooye. kow in ay nabadda soo dhaweeyaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda kana soo qayb galaan gogosha nabadda aw digil gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. dhammaan bulshada degta Shabeellaha Hoose waxaan ugu baaqaynaa in ay soo dhaweeyaan kana soo qayb galaan gogol nabadeedka iyo wadatashiga ay fidiyeen qoomiyadda aw digil. dawladda federaalka Soomaaliyeed mas'uuliyiinteeda sarsare sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in fiiro gaar ugu yeeshtaan kuna taageeraan gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta aw digil degmada Afgooye hil iyo hooba inay ku garab istaagaan. Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag, Somali Channel, Muqdisho.